waxay waqti la qaateen qoyska inta kale oo ay ka midka yihiin ugaadhsadayaasha oo ay naga jeedin kuwa dhadiga sidoo kalena halkani waxay doonayaan inay kaga tagaan taran iyo raad waqti badan ay sii joogi karaan waxa geesulba ka yeeray saacida libaaxyada kuwaas oo xadkooda inta badan difaacanaya jaarna la ah libaaxyadan labka iyagu markaste waa qaar wax arkaya xataa haday tahay mugdi waa qaar aan laga dhuuman karin mar walba hadda mise weligeedba midka ka badbaaday dagaalo hore ee ugu weyn qoyska ayaa weerar ku qaadaya qaar ka mid ah iyaga waxaana sidoo kale taageeraysa ama saacidaysa mid ka mid ah kuwa dhadiga ah oo la walaala waa mid dhex gashay khilaafaad sidoo kalena gaar loo faquuqay waxay u tahay ku yaryar jaanis isqabsadka kuwa lab isla marhaantaasina midka u weyni oo iyaga u dagaalamaya doonayana inay la noolaadaan qoyska inta kale habeenkaasi kadib lama arag midkii ugu weynaa waana wajiyada kaymaha qarada adag leh khatarta ee qaarada tan Afrika kuwa soo galeetiga ay yaryarka ahi way gaafureegayaan sidoo kalena waxay qoodha kala socdaa oo og kuwa labka ay xoog badan maroodigu inta badan lagama waayo ilaha biyaha sidoo kalena waa mid jecel dhooqada qoyan balse libaaxu midaasi uma ogola وقار xoogooda ku kalsoon sidoo kalena aan khatar weyn ba u qabin midkan isku magacaabaya boqorka kaynta awoodoodu waxay gaarsiisantahay heer ay marqaa tacag ku istaajin karaan libaaxa sidoo kalena meel looma socdaan waa mulkiilayaasha halkan ilaha biyaha balse waa kuwa ugu xooga waaweyn libaaxa iyo maroodigu marka dhanka laga eego duurjoogta waxay sheeganayaan awood maroodiyadu waxay leeyihiin muraayad waliba waxay sheegtaa wax run iyo been labadaba ka kooban waxay sidoo kale leeyihiin inay yihiin milkuulayaasha halkan iyo kuwa halkani asalka waa waxay ka soo qaadeen bisad libaaxi dhamaa cagahooda dhexdoodana waa uu rafanaya balse khatartiisu waa midka uu ku leeyahay shaarubaha midaas oo muujinaysa dhigcas kulaylka cadceedu waa mid aad u adag waa mid laacay qoyaankii oo dhan waxaana la isku dilayaa dhibicda biyaha u dambaysa halkan
body cries out for life. The mind weeps to succumb, to rest, to be still, to avoid that extra step in the heat that drags at your lungs and fogs the mind. waxay dhulka hoose ka faqanayaan cusbo iyo waxyaabaha loo yaqaano macdanta kuwaas oo inta badan ay ka helaan ciidda hoosteeda maroodiyadu. waa mid ay u baahan yihiin inta badan xayawaanada cuna geedaha. cusbada ayaa kowka oo inta badan xataa ay cunaan xoolaha aynu dhaqanno. waxaanu ka caawinayaa inay daaqa sii wadan karaan tamar badana jirkooda uu siiyo sidoo kalena difaaca uu ka qayb yahay. habeenada iyo mugdiyada qaaradda Afrika waa qaar aad u dhib badan. cadceedda iftiinkeeda iyo dayaxa kala jeexaya cirka waxay u kala dhigan yihiin laba habeenkii. inaad ka badbaado khatarta maalintiina aad raadsato waxaad cunto khatarteeduna ay aad u badan tahay. haddii aad badbaado habeenkii waa inaad maalintii hesho cunto oo kana badbaado kuwa ku ugaarsanaya. kuwa haatan u dhalanaya kuwa qoyskooda ka tirsan ee labka ayaa ganiga fureegaya ayaa ugu khatar badan inay afka gashadaan ay cunaan. waa qaar noloshooda waaya toddobaadada ugu horeeya. kuwa soo galatiga ee gaafureegaya ee raadinaya waxay cunaan iyo qoyskooda qaar ka mid oo khatar badan iyo sidoo kale gaajada waa qaar u halis. waxay qaadanayaan waqtigooda ku yaryar ee labka ay haatan qoyska u kacay kuwaas oo iyaga badankoodu aan khatar badan ku ahayn kuwan haatan u dhalanaya. kuwa la digaa laftoodana difaac u ah markay noqoto kuwa soo galatiga. kulka cadceedda oo sayray awgeed maroodigu waxa uu ku soo qaaday weerar isagoo naftiisa la jeclaysanaya inuu halkan harsado iyagana aan la jecel badan ka qabin inta badan ku haya taas. heer kulka cadceeddu waa uu siyaadayaa. maroodiyadu waxay kaaga dhawaanayaan meelaha biyaha leh sidoo kalena uma ogola wax kale oo ka mid ah xayawaanada kale. libaaxu waa ka qayb kuwa halkan jooga balse kuwa yaryari waa kuwa khatarta ugu badan ku jira halkan. xataa ku yaryar ee maroodiga ah xajmigoodu waa qaar aad u weyn. waxa laga xoog batay oo laga caariyay halkan biyaha macaan ku jiraan libaaxyadii waxaana kaligood isugu soo hadhay maroodiyada xoog badan leh.